waxaa ansixiyey 208 xildhibaan. Mahad Cabdulla Cawad oo ah xildhibaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya waa siyaasi 20 sano la soo dhaafay ku dhex jiray siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan golaha sharci dejinta ee baarlamaanka. Cawad oo ay deegaan doorashadiisu tahay deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug waa siyaasiga reerkiisa ugu saameynta badnaa sanadihii dambe. waxa uu qayb ka ahaa ama fududeeyay ridista iyo ansixinta xukuumadihii kala dambeeyay oo hadba qadiyad iyaga u gaara isaga iyo gudoonadii saaxiibadiis ee uu la soo shaqeeyay ku difaacayeen ama ku radayeen xukuumadahaasi. Mahad ayaa sanadaha badan ee uu siyaasadda ku jiro ka shaqeeyay inuusan soo bixin siyaasi saameyn leh oo reerkiisa ah. waxaa sidoo kale doorashooyinkii ugu dambeeyay lagu eedeeyay inuu samaystay odayaal dhaqameedyo kala shaqeeya soo laabashadiisa isaga iyo xubno kale uu doonayay. waxaa la xusuustaa doorashadii 2016 in kursigiisa lagu doortay Muqdisho waxaana doortay ergo uu si gaar ah u dejiyay hoygiisa kuwaas oo soo xulistiisa ay kala shaqeeyeen odayaal dhaqameed. Mahad Cabdulla Cawad oo aan reerkiisa ku dhex amaaneyn marka loo eego waxa uu taray ama ka qabtay deegaan doorashadiisa ayaa dhawaan isagay xildhibaano la socday deegaano ka tirsan gobolka Mudug ay u tageen inay geeyaan raashin hay'ad qeyri ah iyo dowladda Sacuudiga ay ugu deeqday Soomaaliya. waa siyaasi fahamsan sida looga dabaasho xilliyada doorashada musuq iyo maskaxba, laakiin tani waa doorasho uga duwanaan doonta kuwii hore marka loo eego dadka kula tartami doona xilalka xildhibaannimo iyo kan guddoonka iyo ballanqaadyada ay haystaan. xukuumadda oo kaga mas-uula villa Soomaaliya oo uu ka socdo ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa dejisay qorshaha Mahad Cawad looga saarayo golaha shacabka. booska Mahad oo hadda ah kursi uu qof raga u tartami karo ayay xukuumadda iyo beeshiisa ka shaqaynayaan in loo bedelo kursi baarlamaanka lagaga soo galo qoondada dumarka. waxaana loo diyaariyey kursigaasi Marwe Faadumo Aadan Cali oo ah gabar la dhalatay Allah u naxariistee Qamar Aadan Cali oo ahayd wasiirkii caafimaadka dowladda Sheekh Shariif oo ku geeriyootay qaraxii ka dhacay Hotel Shamowe Muqdisho. gabadhan oo ay qaraabo dhinaca hooyada yihiin ra'iisul wasaare Roble waa sababta xukuumadda ay ugu taageerayso soo bixisteeda. haweeneydan uma tartami doonto jagada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. booskaas guddoonka waxaa villa Soomaaliya u wadataa Cabdinaasir Xuseen Geedi oo hadda ah wasiir ku-xigeenka howlaha guud. Cabdinaasir waxaa si uu guddoonku ugu tartamo lala doonayaa inuu ku soo baxo kursiga hadda ay ku fadhiso xildhibaan Duniye Maxamed Cali oo loo bedelayo mid ay rag ku tartamayaan maadaama kan Cawad haweenka loo gooni yeelayo. waxaan ogaanay in Cabdinaasir ay aad isugu dhow yihiin madaxda sare ee dalka oo ugu horeeya madaxweyne Farmaajo, taliyaha NISA iyo madaxda ololaha dib u doorashada Farmaajo. sababta xukuumadda loogu soo diray xilligan waa si uu uga qayb galo tartanka kuraasta baarlamaanka oo ay xukuumadda ku taageeri doonto kana sii dhex muuqdo siyaasadda golayaasha dowladda. Geedi waa siyaasi dhalinyaro ah oo taageero ka haysta reerkiisa ee villa Soomaaliya. rajada ah inuu kursigan ku soo baxo ma xumo marka loo eego xildhibaan Duniye oo hadda kursigaasi ku fadhiso oo aan taageero ka haysan reerkeeda garab siyaasadeed oo ay xugsatana uusan jirin. haddii Cabdinaasir uu ku soo baxo kursiga baarlamaanka iyo kan guddoonka waa mid ka mid ah guulaha ololaha madaxweyne Farmaajo. odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada xildhibaanadan laga soo doorto waxay noo sheegeen inay xooggan tahay rajada in Cabdinaasir wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo Marwe Faadumo Aadan Cali ay ku soo baxaan kuraasta deegaanadaasi ku matalaya golaha shacabka. qorshahan waxa uu qayb ka yahay damac ay villa Soomaaliya ku doonayso inay golayaasha dowladda gaar ahaan baarlamaanka ku soo noqonin siyaasiyiinta sanadaha badan ku dhex jiray siyaasadda, taas beddelkeedana la taageero dhalinyarada masraxa siyaasadda ku cusub. Mahad Cawad oo ka warqaba qorshahan ayay suurtagal tahay inuu u bato dhinaca mucaaradka maadaama uusan hadda wax taageeraha ka haysan maamulka talada haya. dhinaca kale waxaa jira kulan dhowaan dhex maray wasiir Cabdinaasir, taliyaha NISA Fahdi Yaasiin oo ay weheliyaan agaasimaha madaxtooyada iyo ku-xigeenadiisa, kaas oo siyaasigan loogu sheegay in taageero intan ka badan uu kasii dhex raadsado reerkiisa iyo xildhibaanada kale ay heeb wadaagga yihiin si ay ugu gacansiiyaan fulinta qorshahan ka dhanka ah gudoomiye Mahad Cawad. Cabdinaasir oo hadda la dejiyey guri ku yaala madaxtooyada waxa uu durbo la kulmay odayaal iyo xildhibaano u bandhigay sidii qorshahan ay ugala shaqayn lahaayeen. dhanka reerkiisa waxay u arkaan qof buuxin kara booska Cawad isaga oo ka faa'iideysanaya garabka uu ka helayo villa Soomaaliya iyo deegaankiisa. galgaduud gaar ahaan
degmada Balanballe oo ay ka soo cusboonaaday Mahad Cawad waxay villa Soomaaliya u dirtay Leyli ee ugu mashquulisay in kursigiisa loogu soo rarayo Dhuusamareeb ha yeeshee waa qorshe aan dhab ahayn taa beddelkeedana Dhuusamareeb lagu diyaarinayo sidii loogu soo dooran lahaa Cabdinaasir Geedi iyo Marwe Faadumo Aadan colaadda waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda iyo